السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم حريستي وحين ما أنت دبوا في رندونا تاريخ مولدكيس مرحون حاج مهدي أيوب قوليد. مرحونكو اللهم حريستي وحو كمدها شخصياتكي أساس كوها جريتانك شعبك سومالي قلبيد. مرحونكو وحو كل شي سنادو مركا يتكون سقال بغلا فرتني كودي دق مضفيق. 1960 wuxuu dugsiga hoose ku soo qaatay magaalada Herar. Dugsiga sare wuxuu ku soo qaatay jaamacadda Kuteba waqtiga loo garan ogaa dugsiga sare Hayle Salaasay. 1970 wuxuu shaqadiisii ugu horeysay ka bilaabay degmada Dhuxul oo uu ka shaqeynayay wakaaladda horumarinta biyaha ee degmada Dhuxul. 1973 wuxuu ka mid noqday 6 qof ee ku metelay deegaanka Soomaalida boqortooyadii boqor Hayle Salaasay. 1974 waxaa loo diray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo uu ku soo qaatay tababar la xiriira maamulka iyo siyaasadda. 1975 inqilaabkii xukuumaddii boqor Hayle Salaasay waxaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Dhagaxmadow. isla dabayaaqadii 1970 Allaha u naxariistay waxaa marxuumka loo dalaasiyay gudoomiyaha gobolka Jarar oo uu hayay muddo 6 sano ah. mar kale waxaa loo bedelay gudoomiyaha gobolka Afdheer. mar kalena waxaa loo bedelay gudoomiyaha gobolka Maraay Hararge ee deegaanka Oromada oo uu muddo dhowr sano ahay. golihii Shandhiga ayaa mar kale loo doortay marxuumka oo laga soo doortay degmada Fiiq. 1995 waxaa loo doortay xildhibaan heer deegaana ahna xubin ka mid ah guddiga fulinta. 1996 marxuumku wuxuu qabtay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida. 2005 wuxuu qabtay hoggaanka amniga dowlad deegaanka Soomaalida. marxuumka Allaha u naxariistay wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadka dhifka naadirka ee waqtigooda geliyay samata bixinta iyo badbaadinta shacabweynaha dowlad deegaanka Soomaalida. marxuumku Allaha u naxariistay wuxuu ifka kaga tagay 22 carruur ah oo 12 ka mid ah ay yihiin wiilal, 33 ilmood oo isra alashaan uu yahay awow ama ay dhaleen carruurtiisu. Allaha u naxariistay waxaa shalay lagu aasay marxuumka xabaalaha Qoordheer ee duleedka magaalada Jigjiga, waxaana aaskiisa ka soo qayb galay xubno ka socda xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ugu horeeyo hoggaanka nabadgelyada Mubashir Dubbad Raage. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka UNLF Mudane Cabdiraxmaan Mahdi Maadi iyo xubno kale oo ka mid ah hay'adaha amniga iyo dhammaanba xisbiyada deegaanka Soomaalida. Allaha u naxariistay waxaa marxuumka u tacsiyeynaya dhammaanba Soomaalida geeyada Soomaaliyeed adduunka caalamka meel walba ka joogaan. marxuumku wuxuu ahaa mid saameyn weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed, taariikh iyo aad fac weyn ku leh, laakiin waxaan idin soo ururnay intaanu ka haynay taariikhdiisa marxuumka. Allaha u naxariisto Mahdi Guuleed Ayuub, madaxweynihii hore deegaanka Soomaalida. Nimcaanil Kacse, caasimadda dowlad deegaanka Soomaali Galbeed, Jigjiga.